هذا وش هذه واحد ديما وحاس كلام صندوق الغاوي واحد اللي يمسحونه مجال صندوق حنو مديرين قران معنا واحد ما دمستريس kamida kuwa xumeynaya magaca ragga Soomaaliyeed waa arxan laawe xoogaya gabadha dabadeedna si qasab ah kaga duubaya mobile ayadoona gabadha dhiig uu ka socdo ayuu sii wadanaya hooshiisa taas oo muujinaysa in gabadha yar ay tahay bigro qaybta dambe muuqaalka hadaad daawatid oo aqoonsatid shakhsiga falkan ku kacaya fadlan nala soo xiriiri dhammaanteena aan ka wada qayb qaadano ka hortaga kooxdan dhibaateynaysa hablaha Soomaaliyeed ee sharafta leh kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta awadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga ay idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umare leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeya inta awlaadoonkan ilaahay awlaad baari hasiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaan la gareeyana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa mal adduunyo ay sifileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siya dambiga waalidkoodana ee buu dhaafay rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku azuma jannatul firdaws al'a inta xanuunsan rabbi subhanahu wa ta'ala xanuunka ka dulqaado xaasidkana waxaan leenahay wa min sharri حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وعكودا بين يهوك قصار ورب سبحانه وتعالى عن كعبر إنه ومد صومالينا مالك استوي جوكت رب سبحانه وتعالى نسر جيسي جرجار كيساسيو بدوين كي وجودا بيه وحمالك للدوان الصومالية كسو بدنا يتعدي هذا اللوج جيسنا يا وين كصوماليين وعنا عرين تاسي جيسنا يا شخصية درجة صوماليين مقعود إبان يكواسو عن لهن واحد ضميرة إسلام كان سعر عن الدرقة ولدق ما يهبلها صوماليين وحنا كوان عد مودا مررك قارين إنسان لا دلالين هوين إسلام كان إنسان دلين إسلام سيدو كلنا إنسان ودحين هويني معايا له وحا هوينك وجيسنا يعني دباتوين أن لسوكو بكرين وعنا شخصيات كانوا شيشة بقد أهانا اسكوكو حيران أي سميين إني دلان هبلها أي كفصدان قاركود سيدو كلنا هبلها أي كدوبان موقالة إنسان رالي كأهين أيكو إسلام كاسي سي قصبا موقالة كدوبايو وحاسميه ما دمان بلشدة صوماليين إني أمي دودا سيدي لغهور تيجلها كوحدان وسو جيستين دباتين تهبلها صوماليين waxaa kolka hore dhalinyarada qaarkood ay sameyn jireen in gabdhaha xiriirka ay leeyihiin ay weydiistaan inay u soo duubaan muuqaalo isla markaana rakaata ahaan muuqaaladaas ay u haystaan haddii gabadha u diido galmane ay ku shaaciyaan baraha bulshada waxaana qaar ka mid ah ay gelinayeen website-yada laga daawado muuqaalada galmada ah laakiin gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood oo arintaasi sameey jiray ayaa si weyn ugu baraarugay waxaana qaar ka mid ah ay ka joogeen ficilada iyo waliba inay ninkay u sameeyaan wax asxaan oo ku aadan inay u diraan muuqaalo ay ka qaaban ama ay la sheekaystaan kaamirada gabadha ayadoo qaawan taas oo keentay in hadda shabkadan ay bilowday in gabdhaha si qasab ah muuqaalo ay kaga duubaan isla markaana ay uga golmoodaan muuqaalkan oo ah mid si weyn aan kaga naxay isla markaana xalay la soo diray waxa ka dhax muuqata gabar yar oo bigra ah waxaase xoogaya oo kufsanaya nin codkiisa aad maqli doontaan isla markaana aad daawan doontaan muhiimna ay tahay in ninkaasi cadaaladda uu hormar lana horgeeyo sharciga wuxuuna ninkan gabadha uu ku qasbaya in muuqaalka uu ka duubo waxay ka dalbanaysaa inay ka dhaaf inuu ka dhaafo galmada laakiin wuxuu leeyahay waa inaad dhameystirtaa hawsha haddii kale nafsadaada ayaad weynaysaa ereyo la mid ah sidoo kale wuxuu ninkan ay gabadha ka codsanaysaa in dhiig uu ka socdo isla markaana bigradeeda uu baabi'iyay laakiin wuu ku sii qasbaya wuxuu leeyahay waxba igama gelin dhiigga waa inaad dhameystirtaa hawsha waana nin aad u arxan daran isla markaana aan lahayn wax asxaana waana kuwa aan sheegayno oo aad moodid inaysan hooyo dhalin isla markaana aysan gabar la dhalin gabarna uusan u dhixin wuxuuna gabadha uu la dhaqmayaa arinta wuxuu u geysanayaa tacaddi aad u xoogan wadamada adduunka markaad eegtid in haweeney la kufsado ama muuqaal aan raali aysan ka ahayn laga duubo waxaa lagu mutaystaa dambi aad u weyn laakiin hadda waxaad moodaa Soomaaliya meelo kala duwan in arintaasi caadi ay ka naqatay haweenka Soomaaliyeedna loo geysanayo tacadiyo aysan xaq u lahayn inay loo geysto muuqaalkan waxaa lagu duubay mid kamid ah hoteelada Muqdisho sida muuqaalka ay ka dhax muuqato waxaana sidoo kale goobta ay u muuqataa inay tahay goob dad saxmada ay joogaan gaar ahaan meel istiraatiiji ah oo gawaari badan ay marayaan waxaana gabadha cabaadkeeda iyo sidoo kale calaacalkeeda uu ku qarinayaa ninka hees uu ka dhaxshaday qolka hoteelka ay ka joogaan haddaba muuqaalka aan wada dhageysano fadlan haddii ninkan taqaanid nala soo xiriiri macluumaadkiisa si loo horgeeyo sharciga isla markaana gabadhan ay u hesho xuquuqda ay leedahay waase dhammaan dadka muslimiinta waxay arintan ku tahay waajib muqaddas ah in la difaaco sharafta haweenka Soomaaliyeed ee muslimaadka ah هذا وش هذه
في مسلمين ولا في مسلمين واحد ديما وحاس كلام صندوق الغابة انتو سك يولد اللي حتى أنا يولد اللي حتى صانع لا سكري هاي دو دريم سكري هذا دريم عندي أسئلة أنت واه رجعنا وقت حنون ديدي حنون حد ليه حنون مجال صانع حنون مدري قرآن معنا واحد ما لبستنا مثل ما لبستيش حول بالك الخبر